waqtigaaga haddaad manage garayso wax kastoo aad doonayso waad gaari kartaa everything adigoo maanta aan alif aqoon haddaad go'aanka qaadato inaad wax barato jaamacad waad ka bixi kartaa adigoo aan farta sida loo qoro aqoon hadaf markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag naftu markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashada ama naar gashado waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadaf kuu tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli hashiisa dhallinyaroy waxaan leeyahay akhriyo adduunba waa xoogsan karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha u waajah waxaad go'aansatana waad xaqiijin kartaa waa inayd yeelataa to do list qaa'imat alacmaal berri ama usbuucan maxaad qaban doontaa inaad garanayso to do list waxaan rabaa inaan qabto shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa 2 sano kadib waxaan rabaa inaan halkaa joogo sidaan halkaa u gaadhayaa 2 sano kadib waxaan u gaadhayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa inaan gaadho maxaa carqalada igu ah waxa iyo waxa iyo waxa waa sida aad u go'aan qaadato noloshu waa sida aad ahdaaf u samaysato gool sida aad u samaysato sidee baa looga faa'iideeyaa waqtiga how waabad go'aansatay war waqti dambe yuu kaa lumin sidee looga faa'iideeyaa sidee buu waqtigaagu mid midho dhala u noqon karaa waxay dhahdeen kow waa inaad hadaf yeelataa hadafku waa gool waa yool waa ujeediye meel aad u socoto waa inaad yeelataa haddaanad hadaf lahayn waqti kama faa'iideyn kartid hadafku waa waxa keenaya inaad waxiigsato oo meel gaadhid waxaasaad rabtaa inaad gaadhid nolosha waxa kaloo dhammi markaa tuul waxay u noqonayaan saad waxa u gaadhi lahayd nolosha kaloo dhan waxaad u adeegsanaysaa saad waxa u gaadhi lahayd ahdaaf yaryaroo ka sokaysaa jiraysa hadafka weyn aad u socoto laakiin waxaad qabanayso oo dhammi waa inuu noqdaa wax hadafkaa ku gaadhsiin karaya waxaad qabanayso oo dhammi hadafka wax ku gaadhsiin karaya waa inuu ahaadaa haddii aanay saasi dhicin waqtigaagu faa'iido badan yeelan maayo hadaf markaad yeelato tallaabada koowaad baa ugu adag wax kastoo nolosha aad bilaabayso bilowga adag naftu markay la qabsato wax fudud buu iska noqdaa aad ku dhaqantid laakiin bilowgu mar kasta wuu adag yahay waana laga yaabaa inaad mar dhacdo oo laba dhacdid oo saddex dhacdid laakiin lama quusto intaad hadafkaaga ka xaqiijinayso noloshu waa kufid iyo kacid noloshu smooth maaha intaad hadaf dhigato shurug intaad tidhaahda markiiba meel laga gaadhaa ma jirto sidaa maaha noloshu dhalinyarada inta badan waxaa laga yaabaa intuu yidhaahdo hadafka waa inaan jaamacad waa inaan ka baxaa gartay sabjigaasaan kaga baxaya gartay waa hadaf laakiin maxaa ka sokeeya caraqil baad ka sokaysaa haddii aanad hadaf lahayn haddaanad gool lahayn waxaad la mid noqonaysaa doon raran oo meel ay ku socotaanay jirin haddaynu doon buuxino nidhaana badun ha dhex socoto soo nin waalanoo kale soo noqon maayo ninka doontaa wada doon iska raran oo buuxda waan meel laba u socon waxaa la mida ninka iska noole aan hadafba lahayn saaka cun soo toos caawo seexo berri soo kac saa dambana seexo soo toos seexo cun meel u socdaa ma jirto insha allah wuxuun bay noqon doontaa buu aaminsan yahay noloshu sidaa xaqiiqa kuma noqoto noloshu waa inay ujeeddo yeelataa iyo meelaad ku socoto مثلا قفك مؤمن كا وجددي سووا إنه حويان والله لمنايا نولشني وجبوا بس آخر الوصعة جنية نار باكرة إلهي الرالي قال أنت سوا وجدد وين
waxaad hadaf leedahay ka sokeeyo oo dhammi weynay masalada u shaqaynayaan waxaad ahdaaf waayo nolosha halkaa meelaan hayn tegi mayso waad ku qasbantay inaad dhimato ilaahay hor tagto ama janno gashado ama naar gashado waad ku qasban tahay haddaad janno doonayso ay hadaf kuu tahay janno noloshaada adduun oo dhammi waa inay ku salaysnaataa sidaad hadafkaa u gaadhi lahayd iyo ilaahay raalli hashiisa laakiin hadafna waan leeyahay waxaan wadaana hadafka uuma shaqeeyaan suurtagal maaha maadaama nolosheennu ay tahay hadafkaa weyn inaynu xaqiijino maalan iyo nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aakhiro mu'minku waxyaabaha ugu murugo badan yahay waxaa ka mid ah laxda dunida ku soo martay oo aanu ilaahay dikrigiisu soo marin tira ayuu nabigu ku tilmaamay markaad saxaafada haddii lagu hor keeno ay ka soo baxdo intaasoo waqtiyo aanad ilaahayba xasuusanin waa waxyaabaha qofka mu'minka ahi ugu murugo badan yahay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tira bay maalinta qiyaama ku tahay ka labaadaan idin tilmaamaya waxa weeye hadaf ay yeelato ku kalaan tilmaamayaa ah waqtiga dhowr shaqaa la wada qaban karaa adigoo hadafkaagii u socda tusaalay bixiyaan qaarkood waxay yidhahdaan maalan haddaad weel weyn ama foosto gobolo ama yani weel weyn haddaad lagu idhaha dhagxan waaweyn ku gur dee 5 6 7 dhagax markaad ku riddo waa maxay wuu buuxsamayaa haddii lagu yidhaahdo markaa qururx ka dabagee dhagxan yar dhagxanta yar ridde meel ay ka gashuun bay helaysaa haddana waxaa laga yaabaa 2 baaldiyo qururaxa inaad dib ugu shubto haddii lagu yidhaahdo ciid ka dabagee ciidduna meel ay ka gashuun way helaysaa waxaa laga yaabaa 2 baaldoo ciidana inaad ka dabageyso baashi waa buuxdaa haddii lagu yidhaahdo biyo ku shub haddana la waayi maayo biyuu meel ay ka galaan way sii gelayaan waxay dhahdaan waqtiga bini aadamku si uga faa'iidaysta waa sidaa qof 4 dhagaxe waaweyn intuu ku ridaa buu yidhaha waa buuxaa waqti ma hayaanu subaxi waan soo toosaa soomaalidu maxay ka sheegeen waxay yidhaahdaan nin bay nacas ku sheegeen dadka oo dhan baa wada nacaskaasi in badanoo ka mid yahay waxay dhahdeen nin baa nacas ahayo geeljuro ahayo waxaa la yidhi war maxaad u cadayan weyde wuxuu yidhi dee maantiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goor baan cadaydaa shaqadiisii wuxuu ku soo koobay 2 waqtuun inay tay 2 waqtina midna inuu hurdo midna inuu maxay xoolaha raacayo waxaa la mid ah in badan oo inaga mid sida inuu fakarnaa saasiya that's why aynu waqti u weyni salaam siinaya arday baa tahay مثلا jaamacad dhigta meelihiina kan jaamacada ama shaqada minimum 20-30 minutes baa loo socdaa soo maaha inta ugu yar ama gaari wado ama tareen fuul ama waxaa fuul mostly marka aad ka soo baxdo gurigaaga ilaa intaad shaqada ka gaadhayso ama aad ka gaadhayso jaamacadda waxaa laga yaabaa inay nus saac qaadato nus saaca maxaad qabataa ninkii aan sheegay sidiisii haddaad u fakarayso waxaad odhanaysaa jaamacaddii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa markaa haddaad ninkaan sheegay sidiisii u fakaraysid waxaad leedahay shaqadii baan ku socdaa ood fadhiyaysaa haddaad se rumaysantay hadafkana inaad ku socoto waqtiganna inaad wax labaadna ka faa'iideyn karta ka waran haddaad tareefuushanto aad tiraahdo jiskayga qur-aanaan akhrinaya ka waran wardigaygii maantaan rogaya xataa adigoo gaadhiga wada wardiga waad rogi kartaa gaadhiga afka lagama kaxeeye subxaan allah walxamdulilah ma odhan kartaa adigoo gaadhigaaga wadaya intaad wardigi kartaa dhuso saacaas baad u malaynaysaa waxaa laga yaabaa every 2-3 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo every 2 minutes inaad 100 subxaanallah tidhaahdo imse goor baad subxaanallah ama astaqfirullah odhan karaysaa intaad gaadhayso shaqada uun maaha waqti aad meel fadh waxaa laga yaabaa haddaan ku idhaahdo maalintii waxaa lagaaga baahay inaad 1,000 jeer subxaanallah tidhaahdo anaga waqtiba helaynaan 1,000 meel fadhiisana inta 1,000 jeer laga odhanayo 3,000 oo jeer baad odhan karaysaa haddii intaad shaqada kusii socoto aad tusbaxaaga rogto taa macnaheedu waxa weeyaan waqtiguna waa shaqooyin badan baa la qaban karaa
isagoo waxaad u assign garaysay baad haddana wax kale dhexdiisa sii qaban kartaa adigoo shaqada wadaad wardiyi kartaa shayga kale aan tilmaamaya wuxuu yahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka habeenkooda ka faa'iidaysta aakhiro siday u guulaysanayaan الصهر الإيماني dadka habeenkoodii wax ka mida u soo jeeday inay ilaahay caabudaan siday aakhiro u guulaysan karayaan ina almuttaqiina fi jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun ilahay wuxuu leeyay kuwa alla ka cabsada aakhiro jannooyin iyo ilo biyood bay ku raaxaysanayaan aakhidiina maa aataahum rabbuhum wixii alla siiyey bay qaadanayaan inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin adduunka intay joogeen bay ahayn kuwa samafala muxsina kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii hujuucoodu wuu yaraa ama habeenkiisi kaleba haddaynu dhahno seexashadoodu way yarayd macnaheedu waa maxay habeenkoodu hurdo qura kuma bixi jirine shaqo kalena way qabsan jireen oo way cibaadaysan jireen weeyaan waqtu saxarka salaadu markay soo dhowdahayna istikfaartay badsan jireen thuluthu leyl alakhiir xadiidkii waa kii tilmaamaya ilaahay inuu yidhaahdo war yaa toobad keenayaan toobad ka aqbala yaa istikfaar yaa waxay weydiisanayaan wax siiya waqtigaana ilaahay bay baryaan subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya macaayir ilcilmi asahr habeenkii inay soo jeedkiisani uu ka mid yahay aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin baa ilaahay leeyahy kuwa habeenkii taagan iyagoo sujuudaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisu ay hayso aakhiro ka warwaraya naxariista alla rajaynaya kuwaas miyay siman yihiin iyo kuwa aan sidaa yeelaynin labadaa kooxood waxaa laga dhigay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun kuwa wax aqoonta ah iyo kuwa aan wax aqoon tahayn miyay siman yihiin kuwa wax aqoonkii waa kuwa information tiro badan le madaxooda ku jiraa maya ayadda waxay noo tilmaamaysaa inay yihiin kuwa garanaya waxay u nool yihiin kuwa garanaya hadafkii ay ku socdeen iyo aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la xisaabtamayo kuwaasaa ah aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuuna waa kuwa hadafku ka lumay inamaa yatadakaru ulul albaab baa ilahay yidhi waxa waantoobo wax ku qaata kuwa garaadka u saaxiibka ah tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic يدعون ربهم خوفا وطمعا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كل هذه النصوص waxay tilmaamaysaa waqtiga ka faa'iidaysigiisa dadkii ka faa'iideeyey ee hadafkii ugu weynaa uga faa'iideeyey ee weliba waqtigoodii ay raaxada ku jiri lahaayeen wax ka mida ka gooyey ayuha alaxiba qofka mu'minka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay qof aan firaaqa aqoon shaqooyinku qabanayuunbaa isbedela laakiin firaaq ilaahayna nebigiisii muxuu ku yidhi faidaa faragta fansab shaqooyinka adduunya waxaasoo kale iyo dacwo kuwa markaad ka soo daasho ku daal ilaahay suurtaagiisa cibaado kala bilow waqtigu waa waxa dadka aakhiro hal seega waa shayga qura ay u calaacali doonaan xataa idaa jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun geeridu markay u timaadaba ilaahay yidhi bay waxay idhaahdaan rabbi irjicuun ilaahu i celi oo muxuu ku falayaa celista lacallii acmalu saalixan fiima tarakt ayuha alaxiba haddaad waqtiga qiimihiisii fahamtay isla markaana aada hadaf yeelatay garatayna waqtigu ahdaaf tiro badan inaad ku wada samayn karto waxaan ku gabagabaynaynaa
sidii aad wakhtigaaga u qaybin lahayd waxay dhahdaan kow waa inaad yeelataa to do list qaa'imat alacmaal berri ama usbuucan maxaad qaban doontaa inaad garanayso to do list waxaan rabaa inaan qabto shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa iyo shaygaa waa wax cad oo la garanayo ka labaad waa inaad jadwal u samaysaa saacadee iyo saacadee baad qabanaysaa waxaa saacaddaasaan qabanaya subaxii markaa soo tooso waxaasaan qabanaya waktiga ku xiga waktigaasaan qabanaya waxa ku xiga waktigaasaan qabanaya to do listkaagu bay dhaha waa inuu mar kasta ku hor yaallaa gurigaaga derbi walba waa inuu kuugu dhijisan yahay shaygaan qoladan dambe shaqada waa inuu kuugu dhijisan yahay waxaad qabanayso meeshay ishaadu ku dhacdaba waa inaad arki kartaa bay dhahdaan wixii aad rabtay inaad waan ilaabayo maanta buuggii maan eegiyo waxaa lagaama rabo waxaa laga yaabaa intaad buug yar ku qorto isaga laftiisuba inuu kaa lumo amaad ilowdo laakiin haddaad everywhere sudha bay leeyihin meel kasta hadduu kuu sudan yahay mar kasta ishaadu waa ku dhacaysaa musqushuu kuu sudan yahay fadhiguu kuu sudan yahay halkuu kuu sudan yahay every time waad arkaysaa waad garanaysaa nin shaqa sugaysa inaad tahay waxa inaad qabanayso jadwal buu kuu leeyahay time table aad waxa ku fulisa buu kuu leeyahay wuxuu kaloo kuu leeyahay priorities tartiib alawlawiyaat wuu kuu kala muhiimsan yahay مثلا تشنت صلاة الظهر بريورتي وكله واختيقوده وحكا لما دعي كرتين تسيسو لكن مثلا هداد حانوصة ما حد يليسه اما واختي تربتين وحا قوقبطه هدو مدي ركا حانوصة دايتين دخترك جيسو بريورتيز وات كلا مضنان بات كلا السينيسا هدي لكن وحا جدول ليه هي ميل اد وقت uga heshay baad u soo helaysaa xataa inta ku dhaafta waad qallayn karaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan noloshaadoo dhan inay murattab tahay alxaya kullaha noloshaadu inay tahay maxay mid qaabaysan oo sidaad adigu rabto u soconaysa midaad adigu yeedhsatay waxaa 2 sano kadib waxaan rabaa inaan halkaa joogo sidaan halkaa u gaadhayaa 2 sano kadib waxaan u gaadhayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa halkaa inaan gaadho maxaa carqalada igu ah waxaa maxaan kaga tallaabi karayaa inaan sidaa iyo sidaa yeelo dan to do listkaaga wuu qoran yahay usbuuca kan 3 bilood soo socda waa inaan waxaa qabtaa jadwal baad u samaysay waa inuu saa noqdaa 3 bilood kadib waa inaad garan kartaa meeshii inaad gaadhay haddaanad gaadhin maxaa kugu soo kordhay taada dambuu nidaamku kuu saxaya hadday tan nidaamku kaa qaldantay waxaan uga dan leeyahay marka noloshu idaarat alwaqti kama maaranto nolosha inaad maarayso kama maaranto noloshu soo toosoo wax cunoo iska soco waxaasaan samaynaya unoo duuduuba kuma sax noqoto waxaasaan samayn doonaa kuma sax noqoto waxaad u baahantahay markaa waktigaaga inaad ka faa'iidayso intaa ka badan in sha allahu tacaala meelaha lagu qoro ama bugaagtaa ka warantaad sida waktiga loo idaareeyo ka akhri doontaan laakiin duuduub ahaan waxaan idin tilmaamayaa un cimrigaagu waa intaa yare aada haysatee intaasi ha kuu nidaamsanaato sidii aad uga faa'iidaysan lahayd weer quran kuugu soo koobayaana waxay tahay timekaagu ama aakhira ha kuugu jiro ama adduun ha kuugu jiro time cidla ku luma ma jiro ama manfac dunawiya waynu kuu leeyahay ama waynu kuu leeyahay maxay manfac ukhrawiya laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacni islaamnimada qofka wanaageeda waxaa ka mida buu nebigu yidhi inuu ka tago waxa aan macnaa samaynin waxa aan isaga khusaynin waxa aan dani ugu jirin waa inaad ka dhex eegtaa waxa kan hadafkaagii ma xaqiijinaya dani ma kuugu jirtaa dan adduun ma ku haysaa ama dan aakhira ma ku haysaa wa ilaa wax allaaliyo manfac kuuma leh caawa laga bilaabo waa inaad iska xidhaa wax allaaliyo waxaad is leedahay
منفعة دون كوما له منفعة آخرنا كوما له عاول قبل أبوانا تسكحنا وين دوكسوناتا وقت كاجا هداد ما نجري سو وحكستو أدوني سو تجاري كرتا everything أدقو ما أنت أن ألف أقون هداد قوان كأقادتين أدو حبرت الجامعة دوات كبيحي كرتا أدقو أن فرط السيدة الله قراء أقون تطقى توكا بحي باكرة مثلا أزهر شيخ الأزهر نمك شيوخ دي سومر كم دها لو يكون تنشر بكو قاري سوا وحنا قرين وحنا آخرين فلوسيدي الرئيل شيسيدا يوميد شيرشيدو مid ardaya gaas iyo wax kaga qubteen oo kiiba maagay oo dhawr balkaaga jaahilka ahi naga du jaahilkiibu ka xanaaqa dabeetana maalintaas uu bilaabay inuu yidhaahdo waxbaa baranaya ninkii faynuusta masaajidka shidi jiray azhar oo dhan buu sheekheeda noqday azhar oo dhan buu sheekheeda noqday macnaheedu maaha waa loo waxyooday ama wuu riyoodo cilmiga kusoo degay maaha wadadii loo mari jiray buu maray weeyaan go'aan buu qaatay hadafkiisaasi inuu xaqiijiyo waanu xaqiijiyey noloshu markaa waa sida aad u go'aan qaadato noloshu waa sida aad ahdaaf u samaysato gool sida aad u samaysato haddaad si rabto inaad tv-ga iska daawato mobilka iska daawato wax iska cuntid waqti badan seexatid kubadda iska daawatid noloshana aad wax ka noqoto waad riyoonaysaa in lagu toosiyaa baad u baahantay marka waa nin riyo ku jira ee nin noolba ma tihid qofka nooli wuu garanayaa halkuu ku socdo iyo waddadu u marayo dadka yurub iyo mee soomaaliyeed dhallinyaray u badan yihiin dhallinyaray waxaan leeyahay akhriya adduunba waa xoogsan karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha u waajah waxaad go'aansatana waad xaqiijin kartaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin